tacsiyo intii dhimatay ilaahina waxaan uga baryaynaa inuu naxariistiisa iyo jannadiisa siiyo kuwa halkan aan ugu nimid oo dhibaataysan oo xanuunsanna dhaawac ka soo gaaray qaraxii maanta ee qoladii horarka ahaa ay u geysteen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu si degdeg uga kiciyo runtii waxa dhacay maanta wax aad iyo aad u naxariis weeye hal goob inay dad tiradooda soo gaaraysa ay ku nafwaayaan dad 40 kor dhaafayana ay dhaawac yihiin oo qaarkood maanta ay nafwaayeen taasi waxa weeye xabaareen kaliya ma aha waxaan karaa waxa weeye waa weer qaawan oo xashimo ah oo loo geystay shacabka Soomaaliyeed oo aan kala socnayn oo caruur iyo duqay iyo dumar iyo rag bale waxay galabsadeenna aysan jirin qolaas horarka ah waxay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed waana aragtaan maaha waxay raadsanayaan dawlad iyo dad dawlad u shaqeeya ma aha waxay raadsanayaan waa anagoo idil waxaa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada jeesano oo aan iska dhicino كدولة أحان أنا وحلينا دور شعبنا وحكرنا يجنا دور كلنا هاوش عن كلام دور شعبنا وحوي هاي ما أنت واحد انتي وعروض تنا وقبلها لي وإخوانها لي وحماس ماشي أسقط انتي وحكون عوانا وحنون لجي فانا وعروض تاني قبلها لي كل جينا وين جارسة هذا اللون الاستاذي ولوين كان حرك أو أنا بني آدم أهين أو أنا صومالي أهين أو أنا إسلام أهين وحي هم ترتوا وحوش ويا وهبعدنا عن أبيينهم هنا نحاول من وصول الجسم وكو خصبنا هي أنك دولة أحان مركز دولة أحان وأصل ديار لنا إذا ما دخل في سيدنا وديار وأنا حول قلنا وأنا حول قلنا مع المحصول صعد الله يراهدو waxaan rabaa ciidanka inay u diyaar garoobaan qolooyinka horarka sidii la isaga celin lahaa oo aanan Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyo banaadamnimada midna aan lahayn shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay baabuurta qarxaysa dadka wada meel ka soo baxeen
xaafadahay rabaan ha ahaadaan meelay soo mareen qof baa og dadka og inay nala shaqeeyaan oo la soo wargeliyaan si aan uga hortagno si aysan u dhicin arrimahan oo kale sanadkii la soo dhaafay 2016 waxaa ku dhintay 900 oo qof oo shacab ah yaa ku dhintay weerarkii ay geysteen qoladan horarka ah waa raadinay inaan la macaamilno waa raadinay inaan kuwooda xoogaa roon aan u yeerno dhalinyarada ah aan u samayno meherad iyo dhaqan celin aan u samayno kuwooda cadowga u shaqeeya oo dibadaha laga soo diray ilaan Soomaali ma ahee iyaguna haddii khasbiyan 12 milyan oo Soomaalida ah kama hor imaan karaan iyo ciidanka geesiyiinta ah oo u taagan inay difaacaan dadkooda iyo dalkooda difaacaan anigu waxaan ballan qaadayaa madaxweynihii qaranka aniga waxaan ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku idhaahdaa aan wax gaarsiino si joogto ah aan wax u gaarsiino hanti burburtana insha Allah haddii ay ilaahay dhaqaalina soo geliyana aan caawino oo aan dib ula dhisno wixii burburay qofka noo soo sheegay information ama la soo wacyigeliyo noo sheega meeshii wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaasaan sheegay inaan siino qofkaasna ilaahay ajarna waa ka siin maxaa yeelay wuxuu badbaadinaya dadkiisii oo walaynaya badbaadinaya shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information haddii dadkaas horarka ah ay la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan laamaha amniga ah waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan hawshaana u istaagaan